soo dhawaad saaxiibayaal muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay laba platform ama laba website oo aad ka baran karto luqadda Ingiriishka oo hadda aad ka bilaabi karto. Muuqaalka ka horreeyay waxaan soo geliyay sida ku baran kartaa luqadda Ingiriiska sanadka 2025. Marka hadda waxaan idin wadaagi doonaa laba platform oo aan hubo haddii aad xooga saarto oo aad la socoto step by step inaad luqadda Ingiriishka meel fiican ka gaadhi doonto. aniguna sidoo kale waxaan rajayn lahaa xilliyada luqadda Ingiriiska bilow ay ahayd in maaragtay balaafyada noocan oo kale ama website-yada noocan oo kale aan heli lahaa balse aan chance fiican u helin. halka adigu maanta aad chance u hayso wada arkayso adigoo luqadda bilow ku tahay ama meel fiican ku joogto intermediate tahay inaad aragto platformyo ama website-yo noocan oo kale marka toos baan u galeynaa laba website oo maanta haddii aan luqadda bilaabi lahaa kow iyo laba aan ka dhigan lahaa oo maanta maaragtay aan wax ka baran lahaa kow xukuumad wax loo yaqaanaa ENG Feedback ama English Feedback loo yaqaanaa wax la soo gaabiyey halkaasaa aad arkaysaan ka muuqata halkaa shaashadda asagaa ka muuqata shaashadda ENG Feedback ku qoran wuxuu leeyahay kalarka noocaas oo kala markaad Google soo geliso waxaad qoraysaa ENG Feed English Feedback la soo gaabiyey marka halkan waxaa ku jira boqolaal kumanaan milyan oo casharra ku jira dad kala duwan baa bixinaya casharrada bixinaya dadkana ugu horeeyaan marka anigu muddo dhexdaas ah ayaa maaragtay hadda 2 sano meelahaasaan ku xidhanahay welina waan isticmaalaa markaan u baahdo waan soo kala waan soo buuqdaa marka adigan saaxiibeen ka faa'iideysan doonto ayaan rajaynayaa haddaba sidee mataqaan casharadan loogu dhiganayo oo maaragtay aad uga faa'iideysanaysaa marka halkan aad hoos soo riixdo halkan waxaa ku yaala macallimiinta bixinaya maaragtay casharrada anu gabadh Emma leedahay iyo wiilka la yiraahdo Adam ayaa mataqaan aad iyo aad aan ugu xidhnaa adigoo kulli dooqaaga waad ka ciyaari doontaa macallimiin kala duwan baa ku jira halkan markaad hoos soo riixdo halka waxaad ka helaysaa English levels ay ku qoran tahay English level waxaa ku qoran beginner intermediate advanced baa ku kala qoran marka midkii aad doonto ayaad ku dhufanaysaa marka haddaan mid kamid ah hadda dooranno kaasar dhawr intermediate qaybta koobaad intermediate-kaygaas ciwaanka koobaad baa ku dhuftay kabacdi waa kan markaasna noo soo bax how to say yes in English sanad ka odhanayso luqadda Ingiriiska way aan ku dhufoonaa tijaabina bal. Hello, my name is Emma, and in today's lesson I am going to teach you pronunciation of years. Okay, so I know the pronunciation of years can be confusing. Let's start. sida saaxiibay idin muuqata gabadhaas waxay ka hadlaysaa sida lagu odhanayo sanado luqadda Ingiriiska si casharro kuwan ka muhiimsan iyo kuwa kala mid oo noocaas oo kale u baxay ayaa jira boqolaal oo kumanaan ayaa jira marka wixii kala casharrada hoose hadda watan Emma aan qoran halkaas hadda Emma qoran casharrada kale bixiyso marka sidaa salimad u baaran kartaan qaybta grammarka qaybta beginnerka qaybta advancedka hadba qaybta aad doonaysaan ayaad ka heli kartaa marka platformka number 1 aniga ah waa barashada luqadda Ingiriiska ama website-ka number 1 ah barashada luqadda Ingiriiska kiina labaad waxaan ka dhiganaa mid kala yaqaano BBC English Learning marka soo gasho Google-ka waxaad qoraysaa BBC English Learning dibna halkan ku soo baxaysa sidoo kale ku soo baxayo kana waa mid kale oo aad iyo aad muhiim ah oo maaragtay aad ka baran karto luqadda Ingiriiska hadda halkan waxaa platformkii ama website-ka soo furmay casharradu waa badan yihiin waxaa soo casharana ku jira marka mid kamid ah aan furo iyo sida maaragtay aad ula socon karto ka koobaad halkaas aan furo waxaan qorayaa waxaan meenayaa ku dhufanayaa walk English qaybta shaqada Ingiriiska ayaan ku dhuftay bacdana halkan soo saaray markaan hoos u jiido waa kala duwan markaa mid waxa walk English business jargon job applications office English mawduucyo kala duwan ayuu maaragtay markaa ka hadlayaa oo wax ku hadda badan yihiin marka bal aynu mid kamid ah ku dhufano hadda midkan waxaan ku dhufano water and international law midkan ku dhufano international water and international law way biyaha iyo sharciga caalamiga way biyaha iyo sharciga caalamiga waa ka mawduuca markaa waa laga saalamay video baa halkan ka soo baxay videogaas oo dhufano waxaa ka aragtaan muuqaal baa la daawan karaa muuqaalka haddaba transcriptigiisa waa kan ama transcriptigiisa qoraalkiisa waa kan halkan ku qoran
sidoo ku bilaabay waxa weeye every sentence uu leeyahay hadal walba uu leeyahay kan uu qoran yahay hadda wuxuu ku bilaabay water biyaha it is a vital for all life yani waa mid muhiim u ah ama lafdhabar u ah nolosha oo dhan so who owns it yani yaa leh biyaha haddaba some of the answers to that might surprise you wax laga yaabaa jawaabaha kuwa lamid yani jawaabahaas oo kale inay kaa yaabiyaan we will explain how waan sharxi doonaa inkasta oo different ways water is on dhowr hab biyaha loo kantaroolo the law can help you sharciga ayaa ku caawin doona should the companies profit from the something we all need miyay shirkaduhu ka faa'iidaan waxaynu dhammaantiin u baahannahay yani saas oo soconaya marka shirku ka soconaya isagoo muuqaal waa daawan kartaa isagoo oo transcript iyo qoran waa kan waad arki kartaa marka qalin saaxiib waa mid kale oo aad iyo aad u ballaaran oo mataqaana aad ka faa'iideysan karto noocyada kala duwan qayb wuxuu leeyahay pronunciation ku leeyahay qayb wuxuu leeyahay maaragtay grammarka qayb wuxuu leeyahay vocabulary-ga ah qayb wuxuu leeyahay news-ka ah iyo wixii kale intaa la halmaala ee ama courseska koorsooyin gaar ah haddaad doonayso oo kale waad ka heli kartaa sidoo kale marka labada platform baan maanta idin la wadaagayay